السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalka xanuunsanaya ama walaasha xanuunsanaysa la ildaran sixirka iyo xasidka iyo jinka iyo waswaaska iyo walwalka iyo walbahaarkaba ilaahay waxaan u weydiinaynaa in ilaahay caafiyo subxaanahu wa tacaala. xalaqadeeni 14aad tan ah waxaan kaga hadlaynaa insha allahu tacaala. waa muhiim jiddan inaad ogaatid calaamadahan soo socda aan kuu sheegi doono in haddaad isku aragtid laga rabo inaad iska gaadho. calaamadahaas oo halis ku ah qofka noloshiisa caafimaadkiisa gaar ahaaneed halis ku ah. ma ogtahay 3 meeloodba inuu jinku uu degayo qofka jirkiisa kamid ah. jinku inuu 3 meelood jirka kamid ah uu degayo ma ogtahay. 1 xabadka sadriga la yiraahdo xabadka, garbaha 2 labada garab, 3 dhabarka. 3daas calaamadood waa 3 calaamadood ugu halis ah. calaamadaha 3 ah haddaad isku aragto ogow waxaad ogaataa waxa ku haya waa jin ee jirkaaga ku jira ee loona baahan yahay in suuradan aan kuu soo sheegi doono barakaysan ee aad akhrido biidhnillaahi kariim ee biin aad ku tufato tahliil oo macal gobki iyo muxuu ahaa aad ku darsato biidhnillaahi kariim. markaan ka bilowno muxuu ahaa xanuunka ka imanaya ee ku yimaada xabadka. xanuunkaas qofka inta uu baxo ee isbitaal uu tago ee xabadkaas sidii qof muxuu ahaa TB uu qabo oo ka refetor si loogu soo qoro hadii uu qabo uu iska shakiyo xanuun aan dhamaad lahayn oo muxuu ahaa dhakhtar uu tagaya xabadkii kaashif ba laga saaray ama x-ray ba la saaray raajo inaan waxba ka qabin ayaa la soo cadeynaya. dhabarkii la baaraya infection ma qabtid waxa ma qabtid. garbihii ba la baaraya ama xidid nooc meel kale uu galay ama xidid qoloocmay waxba ma qabtid waa nadiif. waxba ma qabtid waa nadiif. maca daalika 3 calaamadood bi jirkaaga habeen imaalan bay ku hayaan. xanuun aan dhamaad lahayn xabadka, garbaha iyo dhabarka. 3 calaamadood haddaad aragto waxa ka degay waa jin. waxaan akhrinaysaa suuradan barakaysan ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeena sallallahu alayhi wasallam ugu dhimrinayay ayaad akhrinaysaa. suuradaas waxaad akhrin doontaa 70 jeer ayaad ku celcelin doontaa. 70 jeer ayaad ku celcelin doontaa biidhnillaahi kariim waan caafimaadaysaa. quraankan waxaad ogaataa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lilmu'miniin. quraanku waa dawo waxaan u soo dejinay buu leeyahay dawo iyo naxariis ee mu'miniinta uu yahay. gaaladana u ziyaadin ma ilaa khasaare mooyaan. suuradaas waxa weeyaan suuratu sharx weeyaan. waduxaata ku xigta xagga barbanaas markii loo socdo alam nashrah. suuradaas aad akhrinaysaa bacda a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. 3 hore ee soo socda waad akhri doontaa liana xalaqadii hore aan u soo diyaarinay xalaqadii afraad aan ku xusnay laakiin xalaqadaasi klibkaasi waa naga masaxmay. waxaad akhrinaysaa ألم نشرح لك صدرك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. 3 آيات هورا إن بدن وكوع علنسا 7 jeer 21 jeer 33 jeer waad wadi. markaad ku celcelisay in badan kadib ayaa waxaad dhamaystiri doontaa inta suurada ka dhiman. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وسود مركة ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. marka aayadaha aad soo gaarto fa inna ma'al usri yusra hadan waad ku celinaysaa insha Allah. fa inna ma'al wa inaad yaqiinsataa culays kasto ku hayo inuu fudeed u ka dambeeyo. culays kasto ku hayo inuu fudeed ka dambeeyo waa inaad yaqiinsan tahay. waa inaad yaqiinsan tahay aaminsan tahay kalaamka Ilaahay inuu dawo u ku yahay. inuu dawo u ku yahay dawo oo aan dawo kale lagu doorsan inuu yahay ogow. fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. marka quraanka aad akhrinaysan waxa laga rabaa weyse hayso waa inaad weyse haysataa
qiblada u jeesataa telefoonadii waxyaalaha kale ku mashquulinay oo dhan iska xiro iska fogay ilaahay subxaanahu wa ta'aalana laba rakac oo salaatul xaaja qadaa'ul xaaja inta u tukatid بنية الشفاء إن الله سبحانه وتعالى كوجا عافيه سورة داس إن اللي وذاقي أن جعل إن اللي وذاقه وأنا سورة عافمات قرآن كله وضع عافمات والدو وعلاج كاملة إن شاء الله تعالى جنك حبت كاحن وجنية دورك كاحن وجنية قربها الله ودنا كاحن وجنية سورة داني كجب كعذاب إن شاء الله كل جوج معي عطر كمسك جن الله هذون كدرسه بين الكريم عافمات دق بعد هليسا إلهي إذن كيسي أنت حنوصنيس إلهي وحن كبرين إن إلهي إنه عافيه عافمات دق وصيه أنت نجا حنوصن الله الدرن إيش حاسدك سحرك والولك والبهارك وسواسك سكرت ديكرك وحاس أردن بواسيرك كل أنت حنوصنيس الله عافيه ولا لدينا أهل فلسطين إن الله سبحانه وتعالى دبعت قدر القاضي أنه إلهي إنه دبعت قدر القاضي صومالي إنه بطيء بشوش برواق إلهي يوصيه سبحانه وتعالى دولة دودن وناجيه انتو حنو وناق إلهي أسو عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.